16 gabdhood oo isku goob ka shaqeeya ayaa hal mar wada uureystay sababtu maxay tahay in uur la yeesho mararka qaar waxa ay noqon kartaa wax iska sahlan marka la eego isbitaal ku yaala magaalada Mesa ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka halkaas oo ay mar qura wada uureysteen 16 kalkaaliyaal oo uur leh tiradaasi ayaa ah 10% kamid ah guud ahaan kalkaaliyaal ka howlgala qaybta lagu tacaalo bukaanada u baahan adeegyada gurmadka degdega ee caafimaadka bukaanada ayaa bilaabay in ay gartaan arintaasi sida ay sheegeen qaar kamid ah kalkaaliyaashaasi mar ay shir jaraa'id oo arintaasi ku saabsan qabanayeen ayay haweenka kalkaaliyaasha ah ku kaftameen in malaha biyaha ay wax u jiraan ama ku jiraan ama uu jiray qorshe la isla ogaaday oo lagu sii diyaar garoobay fasax wadajir ah oo loo aado ciidda masiixiyiinta haweeneyda ugu horeysa ee dumarka xaamilada ah ayaa la filayaa in ay umusho bisha September halka tan ugu dambeysana la filayo in ay canugeeda dhasho bisha January Rachel Sheeman oo ah hal bil oo kaliya ugu harsan tahay inay umusho ayaa tiri uma maleynayo in aan is ogeyn in aan dhamaanteen uur wada leenahay ilaa inta aan ka sameysanayno qol Facebook ah Julian Grow ayaa iyadana ugu mahadcelisay shaqaalaha kale sida ay ugu caawiyaan howlaha aysan haweeney xaamilo ah ay sameyn karin sida tacaalida cudurrada la isqaadsiyo oo ay kamid yihiin qaaxada iyo cudurrada ku dhaca maqaarka ama in daawooyin qaar la siiyo bukaanada qaba cudurka kansarka shaqaalaha ayaa toddobaadka soo socda si wada jir ah xaflad farxadeed ugu qabsan doona dhammaan haweenka kalkaalisooyinka ah ee uurka leh ka hor inta aysan u bixin fasaxooda ee dhalmada ee 12aadka ee ciidda masiixiyiinta